aad maxaa ugu sheegaysaa xagga jooni waxaas? Hadda baldaawadayaal warbixin cusub oo soo dhacday. Youtuberka la leeyahay Dirisla Cabdi oo magaalada Nairobi lagu dhaawacay ayaa isbitaal la yaala ayaa la sheegay. Isbitaal ayuu la jiifaa xanuunkii dhaawaci loo geystay. Dirisla Cabdi oo dad hadda ku kalsooneen oo dadkoo dhan laga ilaalinayo, asigana uu leeyahay dadka laga ilaaliyo, dadkana aan ka feejignaado, dadka saaxiibadiisa u dhadhow iyo qaraabadiisa xataa hadda uunan ku kalsooneen Dirisla Cabdi maadaama wejigiisa kala bar ee baangad ku taalo, dhinac dhanna gaduud laga geliyey. saas daraadeed uu dadku kalsooneen. Qof la socda ayaa muuqaal markuu iska duubaya ayaa dad ayuu wacayaa. Qofkii baangada ku taala Dirisla Cabdi ma fiican yahay marka la leeyahay, isbitaalka la dhigay la weydiinayo ayuu Dirisla Cabdi leeyahay hanoogu wicin, maxaa ugu sheegaysaa isbitaalka aan joogo, naftayda ma haligaysa ayuu leeyahay. Dirisla Cabdi oo naftiisa hadda Kenya halis ay ugu jirto, dalkaasi Nairobi uu joogo, asigoo hadda ka dhuumanayo dalkaasi Nairobi in uu kasii samatabaxo isku dayayo, laakiin dhaawac halis loo geystay darteed uu hadda la jiifo. Dirisla Cabdi youtuberka oo wejigiisa caafimaad qaba ayaa hadda kala bar baangad loogu dhuftay. Caafimaadkiisana wejigi wuu tamaam, laakiin wejigiisa kala bar dhiig ayaa soo fadhiistay. Haddana madaxiisa in uu dhiiga ku furmay ayaa la sheegayaa oo madaxa dhiiga ka dhibaateeyey. Wejigiisa kala bar maadaama ay baangada ugu taalo ayaa dhibaatadaasi wuxuu dhaliyay in ay madaxa ugu furmato dhiig. Dhiigaas oo madaxa ugu furmay ayaa wuxuu dhaliyay baangada oo si xun ilaa iyo wejiga dhaawac loogu geystay, lafaha madaxa gaartay baangada in uu madaxa dhiig ku furmo. Hadda asigoo ka dhuumanayo, qof walba ama shaqsi walbo caan ee asxaab ahaayeen in uu soo booqdana Dirisla Cabdi ama in la soo booqdana uu diidayo, ama meesha uu joogaba in la ogaado uu necban yahay. Hadda maba doonayo qofkuu yaqaana xataa in uu ku soo booqdo meesha uu doonayo, maadaama uu Dirisla Cabdi naftiisa la cabsanayo. Intaan hadda jug loo geystayna dadka u geystay ilaa iyo hadda in uusan ka warhaynin, qofka u geystay ilaa iyo haddana uuba ka warhaynin. Dadka caanka rabaan in ay soo booqdaan in uu u diiday meesha uu joogo, ama qofka u tilmaamay xataa in uu iska ceerin doono ayuu sheegay. Fadlan soo dhawow daawade, muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa. Muuqaalka like saaro, channelkana subscribe dhaho, gambaleelka u furo. Soo dhawow daawade, muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa. Dirisla Cabdi oo wejigiisa aad loo bedelay iyo saameyn xoogan baangada loogu dhuftay ku yeelatay, iyo isbedel weyn oo laga dareemay oo weligiisa uu ku dhaqmi jirin oo hadda uu la soo baxay. Soo dhawow daawade. aad maxaa ugu sheegaysaa xagga jooni waxaas?